kulanti wanaagsan halkani waa qubnaha TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada aan idin haynana waxa ka mid noqonaya Axmed Cabdi Kaariye hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug oo qaaday talaabo dhabar jab ku ah ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyadoo haatan la soo warinayo inuu dagaal ka soconayo deegaanka qaayib ee gobolka Galgaduud wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasina waxay soo tabinayaan in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen xubno saraakiil ah oo ka mid yahay taliyihii booliiska degmada Cadaade Gaashaale Cali Dheer iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka mid ah dagaalka qaybna ka wararkii ugu dambeeyay ee deegaankaasi ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kalena waxa ka mid noqonaya Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka oo qaaday talaabo ka dhan Al-Shabaab iyadoo la soo xaqiijiyay lacagihii ama dakhligii Al-Shabaab sanadkii uga soo xaroon jiray Soomaaliya iyo sidoo kale warar kale waxay tibaaxayaan in Al-Shabaab laga xayiray akoono ay ku lahaayeen bangiyada dibadda iyo kuwa Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay Mahad Maxamed Salaad talaabada uu qaaday ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabkana wiil dhashay ayaa magaalada Muqdisho lagu dilay sababta ka dambaysa dilka loo geystay marxuumkaasi oo la dhashay Cabdullaahi Cumar Abshiro iyo sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa xogaa waxay tibaaxayaan iyo sidoo kale warar ka soo baxay gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qaybtaana qodobadaasi kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa hadduu Rabbi idmo ee ku soo dhawaada qodobadaasi oo inta ka dhameystiran aynu ku bilaabnay hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa qaaday talaabo dhabar jab weyn ku ah ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab xilligan uu ka soconayo dagaal deegaanka qaayib oo ka tirsan gobolka Galgaduud wararka ugu dambeeyay deegaankaasi naga soo gaarayana waxay tibaaxayaan in xubno saraakiil ay halkaasi ku geeriyoodeen waxaana ka mid ah taliyihii hore ee booliiska degmada Cadaado Gaashaale Cali Dheer iyo sidoo kale xubno kale oo dagaalka iyagu hogaaminayay hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye maalmihii ugu dambeeyay waxa uu isku dayay inuu fashiliyo howlgallada ay sameynayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka soconaya gobolada Mudug iyo Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug xilli dowlad goboleedkaasi uu sameynayo dadka deegaanka iyo sidoo kale qabaa'ilada degad ee dowlad goboleedkaasi ay sameynayaan kacdoono ka dhan Al-Shabaab xilli magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudugna ay ka degayeen ciidamadii ugu farabadnaa awd kuwaasi oo la doonayo in lagu xoreeyo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud walibana deegaanada hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor waxa uu isku dayayaa walibana uu marar badan isirtaag ku sameeyay in ciidamadaasi iyo kuwa deegaanka iyo xildhibaanada golaha shacabka ay ku matala qabaa'iladaasi inay sameeyaan abaabul ka dhana Al-Shabaab isagoo oo sheegay in marka hore isaga loo soo maro kadibna markii uu ogolaaday kadib ay ciidamadaasi sameey karaan abaabulka iyo kacdoonada waxa uu marar badan sheegay in isaga kaliya laga xaajoon karo waxyaabaha ku saabsan howlgallada waxa uu sidoo kale marar badan ku hanjabay in isaga kaliya xukunka uu haysan karo walibana uu talada go'aamin karo balse arintani waxa ka soo horjeestay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedka Galmudug waxayna hogaamiyaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor dhagaha ugu shubeen in iyaga ay mas'uul ka yihiin deegaanada ay ku matalaan dowladda Soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen in howlgallada ay ka caawin doonaan ciidamada dowladda Soomaaliya waliba kuwa sida qaaska u tababaran ee dalab ciidamadani waxay sheegeen in ay yihiin kuwa qaab qabiil u abaabulan ayna amar ka qaadan durin hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor xubnaani waxa ka mid ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo deegaan doorashadiisu ay tahay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kaasi oo si weyn uga soo horjeestay hadalka dhawaan ka soo yeeray hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaasi oo ku dhawaaqay in deegaanada hoostaga degmada Ceelbuur iyo degmada kale ee Ceeldheere aan laga xoreey karin Al-Shabaab waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor agaasimaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaadna waxa uu qaaday talaabo ka dhana Al-Shabaab iyadoo la soo warinayo in Al-Shabaab laga xiray akoono ay ku lahaayeen bangiyo ku yaala gudaha iyo kuwa dibadda ku yaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in akoonada la xanibay ay ku jireen lacag aad u tiro badan kuwaasi oo ay Al-Shabaab u adeegsan jireen in ay u diraan saraakiishooda ku sugan howdka ama sidoo kale kuwa ku sugan gobolada koonfur iyo bartamaha Soomaaliya wasiir ku-xigeenku waxa uu sidoo kale sheegay in Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay naflacaari ay yihiin sidoo kalena deegaanadii ugu badnaa abid laga qabsaday waxa uu sidoo kale sheegay in Al-Shabaab dagaalada lagu jiro kaliya aysan ahayn kuwa dagaalka balse meelo badan laga dagaalamayo ay ka mid yihiin lacagaha ay ka qaadaan dadka shacabka iyo sidoo kale ganacsatada
qiyaas la sameeyay iyo sidoo kale lacagaha al-shabaab ka soo gala sanadkii Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay gaarayso 182 milyan oo dollar inay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed. waxaa kaloo wasiirku uu sheegay in ganacsatada ay ku wargeliyeen dhowr jeer in ay ka digtoonaadaan in al-shabaab lacag u diraan sidoo kalena amnigooda la sugi doono. agaasimaha hay'adda nabadsugidiisa doonka qaranka Mahad Maxamed Salaadna waxa uu ku hanjabay in ciddii al-shabaab lacag siisa ay hay'addaasi talaabo sharciya ka qaadi doonaan. waxa uu sidoo kale sheegay in ay liisas hayaan ganacsato waaweyn oo reer Muqdisho ah kuwaasi oo lacag u dira al-shabaab. waxa uu sidoo kale shirkadaha u diray inay al-shabaab lacag siin karin. waxa uu sidoo kale agaasimaha hanjabaadyo kala duwan u diray ganacsatada reer Muqdisho iyo kuwa gobolada dalka oo uu sheegay taagta ay qaadayaan iyo sidoo kale waxyaabaha al-shabaab la wadaagayaan in hay'addu ay la socoto xilli kasto. wasiirka waxa uu sidoo kale hadaladiisii ku daray in qaar ka mid ah ganacsatada dalka ay haatan qaateen go'aankii dawladda ahaa inay diidaan inay lacag siiyaan al-shabaab taasoo uu tilmaamay inay si weyn saameyn ugu yeelan karto kooxda al-shabaab. ugu dambeyntiina wasiir al-Cadaala wuxuu fariin culus u diray cid kasta oo fulin amaamiirta dawladda ka soo baxda. wuxuu cadeeyay in ciqaab adag la marin doono qof kasta oo dawladda amarka ka soo baxay diida. waxa uu sidoo kale sheegay in qofkii dhaqaale siiya al-shabaab in la soo gudbin doono xogihiisa dawladduna ay talaabo sharciya ka qaadi doonto. kooxaha weysan ayaa magaalada Muqdisho ku dilay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya wiil la dhashay. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka magaalada Muqdisho loogu geystay wiilkan oo lagu magacaabayay welibana Cabdullaahi Cumar Abshirow. sidoo kalena wararku waxay tibaaxayaan in xilliga dilka loo geysanayo wiilkani uu ku sugnaa degmada Dharkeeley ee gobolkani Banaadir. waxay saacadu ku beegneed abaara 3 iyo sidoo kale maanta barqanimadii ay ku dileen halkaasi. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sidoo kalena ilaa iyo hadda ma cadda cid sheegatay dilka loo geystay wiilka la dhashay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. balse wararku waxay sheegayaan in dilkaasi ay ka dambeeyeen dagaalyahanada al-shabaab oo alaaba sheegta dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho kuwaasi oo loo geystaa dadka shacabka iyo kuwa ka tirsan dawladda Soomaaliya. maalmihii la soo dhaafay gobolada dalka waxaa ka soconaya howlgallo ka dhana al-shabaab kuwaasi oo intooda badan ay ka soconayeen gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe xilli haatan ay abaabulo ka soo cusboonaanayaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu joogo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ku dhawaaqay in dowlad goboleedkaasi uu ka mid noqonayo maamulada sameynaya howlgallada ka dhanka al-shabaab iskana xoreynaya dagaalyahanadaasi oo uu sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay ama sanadihii ugu dambeeyay ay xoog ku haysteen deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. maamulada ugu badan al-shabaab ay deegaanadooda gacanta ku hayaan waa maamulada Jubbaland iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ka maamulaan deegaano aad u tiro badan kuwaasi oo ay muhiim u yihiin al-shabaab. wararkii ugu dambeeyay qubnaha TV xilligan waa naginta nabadgelyo.